horta caawa halkaan taaganahay ma mudnayn baan filayaa laakiin nasiibkay siiyey inaan Professor Cabdi Ismaaciil hortiisa ka hadlo inaan maaragtay ambassadorkeena culimadeena waaweyn Sheekh Shibis haddana xishood baa jira waan isku dayayaa wixii Ilaahay iga karsiiyo waxaan salaabayaa marti sharafteena caawa ay ugu horeeyaan maamulka safaaraddeena Professorkeena qaaliga magacawiin kula caalamka iyo bulshooyinka ka soo qayb gashay barnaamijkan mugale ee maamuus gale waxaan ilaahay wad ku mahadsantiin sida karaameysanaad uga soo qayb gasheen anigu horta wax kale ka hadli maayo culimadu waxay ka hadlayaan midow iyo isku duubnaan horta Allah ina siiyo aamin dhaha wadadeedina ma hayna ilaahay ay nagu soo riday aamin dhaha gaari taraag hadduu rogmado dadku qolaba dhinac bay u dhaqaaqaa marka maaragtay gaari rogmado rakaabka oo dhan nin walba waxba gaadha dhinac baa loo kala wada dhaqaaqaa dalkeeni horta saas u noqday ilaahayna maaragtay dib haynoo soo celiyo burburkana horta runaantii ay bulsho burburto wax laga dhaxlaa waxyaabo fara badan oo ayna hore u lahayn bulshada Soomaaliyeedna waxaan nahay gob jabtay gobta hadday jabtana looma taagalo taa waxaan u leeyahay isla markaa waxa isbedelay magacaagi haddii hore lagu oran jiray Soomaaliya hadda buugga waxa ku jirta qaxooti ahaan forum been nahay taasi aan ka sii gudbo maxamed noo ag taagan waxa isbedeshay diinta waxa yaraada maaragtay iimaanka waxa dhacday maalin dhaweyd baa Johannesburg waxa ka dhacday ninba sponsor UN ku jiray isagoo UN ku jira salaadii duhur bay soo wacday UN salaadiina uu ku jiray ogow ciyaalku hayana waa 9 ciyaal telefoonkii uu la soo yarbaxay waa ciladaayna haystay ogow uu eego uu arkay numberkii UN intuu sida labada dhinac iska eegay UN ka qabtay markuu UN ka qabtay ayuu ku yiri I will call you later I am praying now nin ag taagnaaba ku yiri war hebelow salaada gudaheega maxaad ugu hadashay wuxuu ku yiri 9 ciyaaran hayaa arrimooga UN ba wax ka qaban karta horta diin ahaan halkaas aan marayna dadnimo ahaan wax maanta laga hadli karo ma